بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد waxaan kusoo jirnay barnaamijkeenii ugu magac daray The Beauty of Somali Language, quruxda af Soomaaliga. run ahaantii barnaamijkan isaga ah waxaan ku qadaal dhigaynay suugaanta afka Soomaaliga iyo naxwaha afka Soomaaliga. waxaan horey ugu hadalnay magaca iyo qaybihiisa iyo magacyaalka iyo qaybihiisa ayaan horey ugu hadalnay. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxaa la yidhaaho fal ama verbka. marka intaanan u gelin falka iyo qaybihiisa iyo israrka ku dhaca falka, waxaan rabaa inaan wax yar dib u xuso 8 qaybood xubnaha af Soomaaliga naxwaha af Soomaaliga aan niri oo ah magac, noun lagu yidhaaho afka Ingiriisiga, okay, magacyaal oo isagana ah pronoun, fal oo afka Ingiriisiga ku ah verb, falkaab oo afka Ingiriisiga adverb, tilmaame oo afka Ingiriisiga lagu yidhaaho adjective, meeleeye oo ah preposition, xiriiriye oo ah conjunction, iyo yaab oo ah interjection. waa 8 xubnood hadalka af Soomaaliga loo kala dhigo markii loo eego dhinaca naxwaha ama grammarka af Soomaaliga. maanta waxaan rabaa inaan ka bilaabo macnaha fal oo ah verb. falka wuxuu qeexaa ama uu taagan yahay falka weer kasta waa inay leedahay fal. weedii aan fal lahayn laguma tilmaami karo weed ama jumlo kaamil ah laguma tilmaami karo. falka sidiisana waxa waaye wuxuu caddeeyaa waqtigii uu dhacay macnaha falgalkaas isaga ah ee ku jira weedha. falka waxaa ku dhaca waxa la yidhaaho historic ama changes of the verb tenseska. luqadda ingiriiska waxay isticmaalaan 12 tense, halka soomaalida ayaan ku isticmaalno 4 tense oo asal ah, basic ah, oo ah fal socdo present continuous, fal joogto ah oo ah simple present, fal tagay oo ah simple past, iyo fal dhici doono oo ah simple future. marka waxaan rabaa inaan u fiirsano bal tusaalaha halka noogu qoran isroga ku dhacaya falka iyadoo ay ku xiran tahay hadba waqtiga falka u dhacayo. aniga waxaan cabayaa bi'aano, waa fal hadda socdo, waayo falka ah cabayaa wuxuu ku caddeynayaa in uu yahay fal hadda socdo. tusaalaha labaad, aniga waxaan cabaa shaahi. tusaalahan wuxuu ku caddeynaa falkan inuu yahay fal markasta dhaca oo soo noqdo. tusaalaha saddexaad, aniga waxaan cabay biyo, waa fal tagay simple past. aniga waxaan cabi doonaa Pepsi. soo ereyga doonaa wuxuu u taagan yahay will, waana fal soo socdo oo dhici doono. magacyaalka labaad ee tusaale usoo qaatay waa iyagu waxay cabayaan caano, iyagu waxay cabaan caano, iyagu waxay cabeen caano, iyagu waxay cabi doonaan caano. tusaalaha kale ee aan soo qaatay waa magacyaalka la yidhaaho isaga. isaga wuxuu cabayaa biyo, isaga wuxuu cabaa biyo, isaga wuxuu cabay biyo, isaga wuxuu cabi doonaa biyo. tusaalaha ugu dambeyso waa iyada. iyadu waxay cabaysaa caano, waa fal hadda socdo. iyadu waxay cabtaa caano, waa fal joogto ah. iyadu waxay cabtay caano, waa fal tagay. iyadu waxay cabi doontaa caano, waa fal soo socdo. marka tusaalooyinkan oo dhan waxaan u sameynaa waxaa waaye inaad ogaataan isroga ku dhaca falka, khaasatan markuu isbedelo falsameeyaha ama magacyaalka, sida uu ula xiriiro falkan ula qabsanaa magacyaalka hadba si uu isku bedelayo. masalan, isaga wuxuu cabayaa, iyadu waxay cabaysaa. falkaas oo ah fal hadda socdo, laakiin markaan isaga isticmaalnay verbka wuxuu noqday cabayaa. iyada
markaan isticmaalna verbka uu noqday cabaysaa marka insha allah darsinkeena maanta intaas ayuu noogu egyahay kulanti dambe oo wacan insha allah waxaan ka ambaqaadi doonaa falkaabka oo ah arbeebka iyo shaqooyinka uu qabto insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu